Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday Cabdiwahaab Sheekh Cali oo ahaa taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde iyo sargaal sare oo asna lagu magacaabo Cabdullaahi Aadan Kurane madaxa shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA sida jirtana xilku waa la soo magacaabaa waana la iska qaadaa waxaase su'aasha meesha ku jirta ah maxaa keenay in hadal haynta ugu badan ee maanta taagan ay noqoto mid xilka ninkan laga qaaday waxaase la arkayay iyadoo goobta xilka laga qaaday ay taagnaayeen mas'uuliyiin heer sare ah oo wasiiro iyo madax badan oo dowladda federaalka ka tirsan taasoo aan hore u dhicin oo aan lagu arkin dadkii xilalka badan ama loo magacaabay ama laga qaadayay intii ay jirtay waxaad moodaa in ay aad u badnayd hadal hayntiisa xilka qaadida ninkan lagu sameeyay taasoo ay mucaaradkii iyo muxaafidkii iyo cid walba oo ka tirsan dowladda ama siyaasiyiin ah ay aad u magacaayeen ninkan oo isagoo asal ahaan ka soo jeedo gobolka aadka muranka badan uga taagnaa Gedo gobolkaasi Gedo oo in badan ay hor taagnayd qabsoomidii doorashadii lagu waday inay xilli hore dhacdo waatan sidan ay u dhacday xilka qaadidii daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo uu dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble 22 Juulaay 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi Aadan Kurane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed 2 Cabdiwahaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay wabillahi tawfiiq talaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha ayaa noqotay mid aad dadku ay u hadal hayeen gaar ahaan ninkan asaga laga qaaday xilka oo baraha bulshada iyo xukuumadda iyo mucaaradkuba ay aad u hadal hayeen fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar adigoo like iyo commentiga noo sii raacinaya waayo waa waxtarkanaga aad nabad maasantiin